waxaan la joognaa gudoomiyihii hore hay'adda shaqaalaha Somaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Cadami gudoomiye komishanka doorashooyinka ee waqti xaadirkan maadaama doorashooyin nagu soo fool yihiin hal ma tahay in la kala diro saad warta adigu isqabqabsiga iyo khilaafkaas wuxuu keenaa inay doorashooyinka dib u dhacaan inta la isjiidjiidayo inta la murmaayo waxay dhaxal siisaa Somaliland inay doorashooyinkii mar walba dib u dhacaan dib u dhaca doorashooyinku geedi socodkii dimuqraadiyadda dhaawac bay ku tahay sumcaddii Somaliland ee beesha caalamku haysay hoos bay u dhacaysaa dadweynaha reer Somaliland ee u heelan inay dimuqraadiyaddu hirgasho ee u heelan inay doorashooyin dhacaan iyagana niyad jab bay ku tahay markaa khasaarahaas ay leedahay dib u dhacaa soo noqnoqonaya ee doorashooyinku ee ay keenayaan khilaafka kolba ay keenayaan dadka midida daabkeeda haya kow in komishanka la bedelo laba in tiradii komishanka la kordhiyo saddex sidii loo qaybsan jiray tirada xubnaha komishanka in iyagana wax laga bedelo oo ahayd 7 xubnood oo 3 madaxweynuhu keeno iyo xisbigiisu labana ay keenaan guurtidu labana ay keenaan labada xisbi mucaaradka ta saddexaad waa taa yani in wax laga bedelo sidii loo qaybsan jiray soo magacaabidda xubnaha komishanka wada tashigii iyo kulankii xisbiyada saddexda qodob ay ku kala kaceen ay ku murmeen waa saddexda Cabdiraxmaan Ismaaciil Cadami gudoomiye hore hay'adda shaqaalaha Somaliland ayaa ka dareen celiya hadal dhawaan ka soo yeeray injineer Faysal Cali Waraabi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u ciiday oo ku aaday inay ku baaqayaan shir beeleed haddii ay qabsoon weydo doorashada golaha baarlamaanka iyo sidoo kale deegaanka isla markaana la kala diri waayay guddiga doorashooyinka qaranka Cabdiraxmaan Ismaaciil Cadami oo arrimahaasi ka hadlayaan waxaadaladiisii ka mid ahaa wax laga xumaada ah aad iyo aad looga xumaada ah gudoomiyaha xisbiga u cid mudane Faysal Cali Waraabe hadalkiisii u dambeeyay erey aan dadka qaban oon ummadda qaban oo ay ka naxeen dadku caloosha ka naxeen Faysalna aanan ka filayno in badan dalkan u soo halgamay kii ku xagaaya amba ugu hanjabaya madaxweynaha iyo xukuumaddiisa wuxuu yiri shirbeelad baanu qaban doonaa oo wax afka laga dhowro waliba nin mas'uuliyadda inta leeg saaran nin wadankan u soo galay hawlo badan oo abaal badan ku leh oo halkay maanta marayso qayb libax ka soo qaatay ereyga inuu afka soo mariyo xaraan bay ahayd runtii ugu dambeyntii Cabdiraxmaan Ismaaciil Cadami gudoomiye hore hay'adda shaqaalaha Somaliland ayaa talo u soo jeediyay asxaabta xisbiyada qaranka Somaliland taasoo ugu baaqayna iska ilaaliyaan hadallada xanafta leh ee bulshada dhaawaca ku ah waxaan u soo jeedinayaa danta guud danta gaarka ah iyo damaca qofku leeyahay in laga hormariyo danta qaranka Somaliland first wayna taa qalbiga ku haysaa dantaadu ha ka dambayso danta ummadda haddaad mas-uul tahay ha kana waantoobaan madaxda aan sheegay inay iyagoo ku xumaynaya amba ku xoqaaya xukuumadda inaanay baal marin dantii ummadda oonay darjeedhin Abdullaahi Raash telefishinka caalamiga TV magaalada Hargeysa